Wararka aan ka helayno magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo taliye sare oo ka tirsan sirdoonka Itoobiya maray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in kulankaasi uu kusoo dhamaaday natiijo la'aan. Wararka Kismaayo ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in sirdoonka Itoobiya ay ka dalbadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe inuu gabi ahaanba isaga haro doorashada dhawaan la filayo inay ka qabsoonto deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. Ayaa arrintaasi waxaa si weyn uga biyo diiday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu isku dayayo inuu mar saddexaad uu ku shubto doorashada dowlad goboleedka Jubbaland. Musharaxiinta isbedel doonka mucaaradka ah ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maalnimadii shalay waxay doorteen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland si oo dhawaan soo dooran doona madaxweyne cusub ee yeelato dowlad goboleedka Jubbaland. Dhawaan ayay ahayd kadib markii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dhanka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ay doorteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo kuwaas oo si weyn uga biyo diiday musharaxiinta isbedel doonka mucaaradka ah ee ku sugan magaalada Kismaayo. Waxaa markii dambe sababtay in musharaxiintu ayagana ay doortaan 66 xubnood mid noqon doona mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo dooran doona dhawaan. Xilliga doorashada ayaa loogu ballamay 24 bishan aan ku guda jirno balse waxaa laga soo hormariyay 6 maalmood taas ay ka dhigan tahay in maalinta Isniinta ah ee bartamaha isbuuca soo socda ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo. Wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya Kismaayo ayaa waxa ay ku waramayaan in xaaladda ay kacsan tahay isla markaana ay juhdi badan ay ku bixinayaan beesha caalamka. Wax walba ay ahaataba waxaa laga dhowr sugaya go'aanka rasmiga ah ay ka qaadato dowladda federaalka Soomaaliya oo kaga aadan doorashada dowlad goboleedka Jubbaland oo maalintii ka dambeysay cirka isku sii shareeraysa maadaama xilligan laba gudoomiye baarlamaan oo ka jiro magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa laga dhowr sugaya dowladda Soomaaliya go'aanka rasmiga ah ay ka qaadato madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland oo la filayo maalinta Isniinta ah lagu soo wajahan ay ka qabsoonto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Isku soo wada duuba ma jirto ifafaale muujinaysa inay dhici karto doorashada dowlad goboleedka Jubbaland maalinta Isniinta ay soo socoto maadaama weli ay ismari la yihiin musharaxiinta isbedel doonka mucaaradka ah ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo madaxweynaha iminka waqtigiisu idlaaday Axmed Madoobe ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland.